الرحمن الرحيم maansada labaad ee aan halkan ku soo gudbinayo waa maansadii amuuraha la baxday maansada amuuraha la yiraahdo waxay ka sheekaynaysaa tusaalooyin badan bay bixinaysaa waxay sheegaysaa agoonta marka aabaheed dhinto awowgeeda aabena dhinto adeerkood hooyadood dumaalo agoonta hooyadood waa adeerkood dumaalo markiiba ninka adeerkoodii agoonta xoolaheedu dhacaya markiiba agoonta xoolaha ku qabsanaya waa dabeecad macruuf oo la yaqaan taa way ka waramaysaa waxay kaloo ka waramaysaa bahalka aboorka la yiraahdo ee dundumooyinka sameeya beriga hore aakhiru joog jiray dadka la soo aaso ayuu lafahooda cuni jiray aboorkii kalsoonidii baa ka xumaatay adduunkii buu yimi wuxuu ka baqay inay dadku samada xabaala ka samaystaan deedna adigoo nool oo ifka jooga ayuu doonayaa inuu ku cuno taasna tusaalahana way bixinaysaa oo dadkan isdilayay waxan iyo maanta aynu la yaabanahay waa aboorkii oo aakhira ka soo baxay wax kale maaha waxay kaloo ka waramaysaa ninka abaala waxa la yiraahdo ee wax kastoo la taro xumaanta ku bedelay kaasoo hadda Soomaalida ku badan xukuumadaha ku badan kaana way ka waramaysaa waxay kaloo ka waramaysaa aqoonta Ilaahay inaanu aadamaha u simine qof bayn ka siiyay ay sheegaysaa waxay kaloo ka waramaysaa maxkamadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan ee dadka masaakiinta lagu dhacayo ee qofkii lacag haysta wax loogu qabanayo taana way sheegaysaa waxay sheegaysaa xabaalahan qof markii horeba madaxtooyada horteeda macluuli ku dishay ayaa markuu dhinto xabaalihiisa la tagayaa kabaradaha iyo uuriyaashu isku tagayaan siyaasiyiintu isku tagayaan calan baa la saarayaa halkaas laga qudbadaynaya marka waxa ku tusaysaa qofka xabaal amaanka waxaan Soomaalidu tiraahdee qofka geeridiisii baa ka qiimo badan noloshiisa waan bilaabaya aadan tarabi baan ku halqabsanay marka hore amuuruhu abwaan aadan tarabo arrin weeye taladii moogtahay agoontii aabaheed rumaadiyo awowgeed markuu go'ay adeerkeed u soo baxay arrinkuna dumaal yahay aqalkii markuu galay agabkii ka urursaday aakhiro markuu tago aayaha wuxuu noqon adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarabo moogtahay aboorkii aakhira ka soo guur aaskiima uu sugo wuxuu yimi adduunkii adigoo ordaayo anfac ka deeyay aayaha waxay noqon amuurahan istabayaal adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarabo moogtahay abwaanow nin hadii la aamino arrin loogu talagalay amar loogu dhiibto isagaan abaal gudin ku afura qabyaalado jiqilada abeeska arax weyn intuu dhigo iska aamusay cuna umushii alawdu 40 ku raacay aayaha wuxuu noqon amuurahan istabayaal adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarbo moogtahay abwaano moogtahay adduunyadu haday orodo arag male haday aragto orod male aamuskay ku canta mar walba adduunyadu waa naafo marra indhihii bay wax ka arkaysaayo lugihii baa ka maqan marra lugihii baa u joogo aragtidii baa ka maqan marka mar walba waxba ka maqan moogtahay adduunyadu haday orodo arag male haday aragto orod male aamuskay ku wacantahay away odayadii hore alla ka cabsigii iyo anshaxiyo xishoodkii hablihii asluubna aaladaha xidhnaan jiray arxankii halkuu maray amar roobkii lama siin dhulku waa alwanaya ma aroorto duunyadu aayaha waxay noqon amuurahan istabayaal adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarabo moogtahay abwaano aqoontaba ilaahay aadamaha ma wada simin waa loo agaasimay mid baa aaladba u xidhan afka nool bahdii sare ku ahayd amaanada macna aadan tarabi bay amaano u haydo gacanta ku hayay
oo magan wahayd weeyaan ma ogtahay abwaanow afka nool bahdii sare ku ahayd amaanada ku amaanan xaajadan aan badweeye maantaba arad baa u sii dheer agabkana u sii geey waxa ka asturo sheeg ayaha waxay noqonaa murahan istabayaan adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarbow ma ogtahay abwaanow aafadan wadaadadu ku aloosiyayaan ashahaadana ayaba armiga la dhacayaan agoomaha ku laayaan ajalaha markuu cuno aad u faraxsanaadee ku daliishay aayado ayaha waxay noqonaa murahan istabayaan adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarbow marka wadaadadu dhan ma aha waa kuwa maaragtay gacmaha dhiigga kule weey ma ogtahay abwaanow sharciyada aguuga maxkamadda awdalan marba kii adduun sida loo abaabulaayay arrin loogu gooyiyo adoonkii islaamee shahaadanaayay ay dintiisu maqan tahay laga xidhay albaabkee afka laga garaaciyo alla ilaahay alla weyn aayaha waxay noqon amurahan istabayaal adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarbow ma ogtahay abwaanow ajal ruux naftiisii ayaantiisii timiyo aaskiisa iilkii aqalkiisii lagu wado intaan lagu arbudin weli aaladaha wax duubiyo arrimaha siyaasiga lagu aagdhaweeyo calan lagu astaamo isagaba adduunkii markii uu abuuraa aragiisa lama rabin xabaalahan arooska aayaha waxay noqon adiga astaantiyo aragtida aqoontiyo jinka agabarkiisiyo aayadaha quraankiyo af kastaba aqoon u leh akhri aadan tarbow marka maasadii amuuruna halka haynoo joogto